soo dhawaada erayo qiimo badan oo dhiirigelin iyo xikmadaba isugu jira. yaqiinso inay dunidu tahay meel imtixaan ku qaabil xaaladeeda, allana u kaasho. ka fakir dadka kaa horeeyey noloshan waxaa ka mid ahaa dad la dheereeyey, la xabisay, la dilay, iyo dad la imtixaamay. wax kastoo ku asiiba ajarkiisa allah ayaa ku siinayaa, oo ka mid ah murugta, dhibaatada, xanuunka, faqriga iyo gaajada. hala fariisan dadka carada badan, xaasidiinta ah, maxaa yeelay waa dad xambaarsan murugo iyo dhib. ku ilaali salaadaha inaad ku tukato jameeco, badi kunagaanshaha masaajidka, ka caadi dhigo u degdegidda salaadaha, waxaad helaysaa farxad iyo sacaado. waxaan kaaga digayaa dunuubta, iyada ayaa ah halka ay ka soo burqato murugta, waxay sababtaa musiibooyin badan. yuusan ku saamayn hadallada xun ee lagu dhahaayo, maxaa yeelay waxay dhibaysaa qofka dhahay ee adiga kuma dhibayso. cayda cadowgaagu uu ku caynayo iyo xaasidka waxay ka tarjumaysaa qiimahaaga, waayo waxaad noqotay qof muhiim ah. ahaaw geesi sugan qalbigiisa, agtaadana ha ahaato himo sare iyo go'aan, yaysan ku kedinin dhibaatada. u furfur wejigaaga dadka, waxaad ku kasbanaysaa inay ku jeclaadaan, una raarici garabka, isliid way ku weynaynayaan. bixi waxa wanaagsan, u jilicsanoo dadka, dami cadaawadda, nabadgelya cadowgaaga, la saaxiib dadka wanaagsan. farxadda waxaa ugu weyn inay kuu duceeyaan waalidiintaada, ka faa'iidayso ducadooda si ay kugu noqoto dhufays adag oo kaa gaashaamato dhibka. ku noolow nolol dhexdhexaysi, ka digtoonow taraxtagga iyo xadgudubka. camalada kala qaybi, ha ka wada dhigin hal waqti, ka dhig kuwa u kala dhexeeya waqtiyo si aad firfircooni ugu heshid midka kale. eeg dadka kaa hooseeya jir ahaan, qaab ahaan, maal ahaan iyo shaqo ahaan, si aad u ogaato inaad ka sarayso kumanaan qof. ka digtoonow inaad dadka dhaawacid, ahow mid carabkiisa dadka ka badbaadiya, ahna mid hadal wanaagsan, hareerihiisu ammaan yihiin. kasbo maal xalaal ah, ka dheerow xaaraanta, ka fogow inaad dadka wax weydiisato, dhexdhexayso noloshaada. xiro dhar dhexdhexaad ah oon ahayn dhar ay xirtaan kuwa tarax tegay, aan ahaynna kuwa ay xirtaan dadka baasaysan. noqo dadka caadiga ah oo kale. ha xanaaqin, xanaaqu wuxuu beddelaa akhlaaqda, qaraabada ayuu xumeeyaa, jacaylku ayuu fasahaadiyaa, xidhiirkan wuu jaraa. mararka qaar aad safar si aad u soo cusboonaysiiso noloshaada, u soo booqato qaraabadaada, u soo daawato waxyaalo kugu cusub, iyo saad u soo barato dhulal cusub.